hay'adda International Islamic Relief Organization ee fadhigoodu yahay wadanka Sacuudi Carabiya ayaa maanta magaalada Hargeysa waxay ku qabteen munaasabad ay ku soo bandhigayaan mashaariic horumarineed ee dhanka biyaha ah oo ay ka hirgeliyeen deegaamada Somaliland iyo guud ahaan caalamka waxaana munaasabada ka soo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda biyaha Somaliland wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska hogaamiyaal dhaqameed iyo khubaro ku xeel dheer biyaha iyo marti sharaf kale ugu horreyn munaasabada waxaa ka hadlay madaxa xafiiska hay'adda International Islamic Relief Organization ee Somaliland Khadar Xuseen Aadan waxaanu sharaxaad ka bixiyay waxyaabihii uu qabsoomay hay'adda xafladani waxay daarantay runtii inaan xilli hore qabanay ahayd hay'adda waxaan u gudbinay in abaarahan soo noqnoqonaya aanay waxba ka taraynin raashin yar oo la qaybiyo inkastoo raashimadii iyo caawimooyinkii aan ku codsanay abaartii markii la qiimeeyay waxay noqotay biyo la'aan abaari waxay noqotay meel aanay biyo jirin marka waxaan ku codsanay in ay dhinaca biyaha wax weyn ka tarto waxay u jeedsatay in ay mashaariicda horumarinta ee dadka wax taraya in ay imika bilowdo in badan baanu ka shaqeynaynay raashin la qaybiyo ama muxuu ahay abaaraha wax laga qaybiyo waxaanu imika u gudbinay in bal ummadda wixii wax taraya khaasatan dhinaca biyaha walibana ceelasha yaryar runtii wax badan baahida wax badan ka tari maayaan waxaanu u sheegnay in boqolkiiba 2 wax ka yar inay ka tarayaan oo imika saad arkayseen ceelashu waxay u badan yihiin ceelasha shalawaliska waxbay tarayaan runtii laakiin mandiqado iyo degmooyin iyo deegaan fara badan ayaan ceelashaasi ka qodmayn halka dhulkeena laga yaabo inaan ceelasha yaryar la helaynin ilaa meelo balliye iyo dooxyo yaryar mooyaan laga helaynin taas marka runtii aanu jecelahay in day dawladda tahay iyo haday hay'adaha tahay in imika bal dhinaca biyaha xoog la saaro waxa dhankooga madasha ka hadlay salaadeen cuqaaliya waxgarad waxayna si weyn u bogaadiyeen hawlaha hay'adaasi ay ka fuliso Somaliland waxayna yiraahdeen almiyaah maalintii biyaha ay u dabaaldegayso xafladda ayada annaguna waanu u dabaaldegaynaa hadaan hogaamiye dhaqameedka nahay waxaananu leenahay orta bal aamiin idhaha hay'adda liqaata iyo jimciyadda raxma oo wada shaqeyn muddo dheer lahaa bandhigan ama hawshan khayrka badan ee ku soo bandhigtay halkan hay'adda liqaata waxaan maanayaa inta ay dalka ka jirtay ay ka shaqeynaysay wax fara badan bay ka qabatay hawl badanna way qabatay hawl badanna waa laga sugayaa hay'adda liqaata al-islaamiyya al-caalamiyya waxa weeyaan hay'ad facweyn oo in badan soo shaqeysay dalkeena way la kowsatay baan filayaa Somaliland maalintii lagu dhawaaqay 18 May 1991kii burco ayayna la kowsatay inoo timi hay'adda liqaata al-islaamiyya caalamiya waxyaalo badanna wayna la qabatay wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Somaliland Khadar Xaaji Yuusuf maariya ku xigeenka wakaaladda biyaha Hargeysa iyo marti sharaf kala munaasabada ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen sida shaqada u wadeen ceelashii horena u sameeyeen qaar damana kulay rajada ay ku jirto ayaan leeyahay ayaan idin farayaa inaad wax uga qabataan waxa kale oo jirta xaaladda wadanku dhibaatada abaarta ee laga sheekeynayo dadka soo dhintay way yaryiin laakiin dadka inta badan biyo u dhimatay dadka dhintay ee abaarta ku dhintay inta badan biyo u dhimatay marka taalafteeda xoog waa fiil waa arintii ugu fikirkii ugu wanaagsanaa ee la qaadan lahaa in biyo la soo saaro in kulay xafladan aan ka soo qayb galay waa wixii ugu qiimo badnaa ee laga soo qayb gali lahaa weeyaan waa biyihii weeyaan oo nolosheeni oo Ilaahay baa Quraanka wada inoo sheegay in biyuhu ay nolosha shay kasta oo jira ay nolol u tahay markaas oo biyo la'aan aanay dhici kareenba in nololba aanay dhici karaahin ugu dambeyn munaasabada waxa soo xidhay wasiir dowlaha wasaaradda khayraadka iyo biyaha Somaliland Mahdi Cismaan Buuri dhammaan hay'adihii Khadar ugu horeeyo ee amba raashin keenayay amba ceelal qodayay kuwaana waan uga mahadnaqayaa wasiir samsamna waan uga mahadnaqayaayo mar wasaaradayada durayaro galay intay
suunka xidhatay bay meel walba ceel ka soo taagtay taana waan uga mahadnaqayaa maalintay kulushay dee ruuxa rag iyo dumarba kolba kii caqli la uunbaa dee wax dhaqaajiye ay ku dhaqaajisay taana waan uga mahadnaqayaa hay-adda International Islamic Relief Organization ayaa waxay Somaliland ka fulisay mashaariic horumarineed tan iyo sanadkii 1992 oo ay howlahani ka bilowday Somaliland waxayna goobta ku soo bandhigtay muuqaalo ku saabsan waxyaabihii uu qabsoomay Maxamed Yuusuf Iimaan Bulsha TV Hargeysa.